odayaal idil ahaantiiba meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalkaygu idiin soo gaarayo kusoo dhawaada warkii koobnaa ee telefishinka Somali Cable oo hadahan oo kale aad ka daawataan shaashada telefishinka Somali Cable waxaan ahay Maxamed Cismaan Daahiye qodobada wararkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah kulankii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu yeeray madaxda dawlad goboleedka Galmudug ayaa baaqday kadib markii madaxweynaha maamul goboleedkaasi uu khilaafay shirkan oo looga gol lahaa xalinta arrimaha u dhaxeeya dawlad goboleedka Galmudug madaxdeedii ayaa waxa qaadacay madaxweynaha dawlad goboleedkaasi Master Xaaf ayaan arrintan ku tilmaamay in faragelin dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso maamul goboleedka isagu madaxda ka yahay geesta kale madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedkaasi ayaa sheegay in shirkan ay ka soo qayb gali doonaan isla mar ahaantaana uu yahay shir loo baahnaa baaqa madaxweynaha ku aadan in kulankan lagu qabto magaalada Muqdishona ay waqtigan diyaar u yihiin balse arrintan ayaa imaanaysa kadib markii baarlamaanka Galmudug uu qaybsamay isla mar ahaantaana qolada kale ay xilalka ka qaaday iyadoona dawlad goboleedka Galmudug waqtigan ay jirto khilaafaad u dhaxeeya madaxdeeda dawladda Soomaaliya ayaa wada qorsho ay ku doonayso inay ku nabdayso dawlad goboleedka Galmudug isagoona madaxweynaha sheegay in khilaaf waliba oo soo dhaxgala maamul goboleedyada lagu xalin doono magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay hoos imaanayaan maamul goboleedyada idil Cabdifataax Qaasim xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu arrin argagax la ku tilmaamay falkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho oo ahaa dilkii loo geystay marxuun ku noolaa xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid halkaas oo lagu gubay kadib markii la dilay xildhibaanka ayaana sheegay in arrintan cadaalad ay u baahan tahay isla mar ahaantaana la doonayo in dadka dilka geystay la horkeeno cadaaladda xildhibaanka ayaa sidoo kale hadalkiisa waxa uu raaciyay in golaha baarlamaanka Soomaaliya laga doonayo inay soo dejiyaan sharciga heebsooca taas oo Soomaalida inta badan ku noqotay lekad oo aan meel loo saaray la garan waayay kadib markii qabaa'ilada Soomaaliyeed ay u qaateen inay kala weyn yihiin isla mar ahaantaana qabiil waliba uu awoodiisa usbaday inuu qabiilka kale ka sareeyo xildhibaanka ayaana sidoo kale hadalkiisa waxa uu raaciyay ka shaqeynta sharcigan golaha baarlamaanka hadii ay soo dejiyaan inay noqonayso wax muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed isla mar ahaantaana sharci kala saaraya uu noqon doono Axmed Dawlo Allah u naxariisto iyo familkaba waa ka tacsiyadeynaya waxa dhacay inay dhaceen ma habooneen qaabka ay u dhaceen ma habooneen mas'uuliyad daro shacabka laftirkeeda ahna waxa waaye meesha kama maqneen oo hadii maanta boqolaal qof iyagoo taagan qof sidaas in loo galana shacabka waxa waaye qayb ay ka noqonayaan dambiga dhacay waa kaga tacsiyadeynaya runtii waana ka xunnahay heeb soocaana caalamka uu ka jiray uu ka gudbay meel qaarna waxa weeyaan waa uu ku dambeeyaa Soomaalina uu ka jirayba wuuna ka jiraa wuxuu kaga jira waxa weeyaan in la leeyahay 4.5 taas waxa weeyaan kaga filan ayadoo wax kale aan la fiirin taas oo macnaheedu ah dadka equal ma aha oo ma wada sinna ujeedkii la rabo ha laga lahaado laakiin dhacdadan waa dhacdo xanuun badan qof in la dilaayo waa wax iska caadi ah waa wax yoomi dhaca siyaabo kale duwan waxa weeyaan ha lagu dilo laakiin qof bini aadam ah in la gubo runtii waxyaabo aad iyo aad u xanuun badan taariikhdana baal madow ka gali doonto hadii dadka falka ka dambeeyay cadaalad aysan marin shacabkana aysan ka dhiidhinin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dad walaalaha aniga kama hadlaayo cid falka geysatay waa fal shakhsiyadeed ee fal qabiil ma aha in sida loo fahmo dadka Soomaaliyeed dad badan ayaa ka xumaaday oo xataa dadka falka geystay qabaa'iladooda waxa ay ka mid yihiin oo يعني إنسانية وحوي فلك وحوي كسر جدو لكن وحرمنا وحي وددي عدالة ده صحدها إن أي مران وهي أذا جرسور كان واجبات كده إيه قتان لمان أنت فلك كل هيدنا إن وحوي للسوحرة بارس لمريو كدبنا فم الكاسي يجا حق له إن أي عفيان إن أي وحويان أي ديستان إن أي دلامب يجا وحويان إسكله لكن كبرلمان أهان sharciga dambiyada jinsiga ah ayaa waxa weeyaan hadda la qeybiyay oo qayb kamid ah waxyaabahaasi oo tacdiyadaasi dhacay kamid ah waa waxyaabaha aan rabno waxa bulshada taabanaya shuruucda ah baarlamaanka inuu ku mashquulo inuusan ku mashquulin isdaware kale familka iyaga waan u tacsiyadeynana anaga baarlamaan ahaana waxaan ku dadaalaynaa in sharcigaas hadda schedule ayaa jiro oo baarlamaankan hadda ertaan oo cusub iyo gudoonkiisa ay la yimaadeen schedule-kaas in lagu shaqeeyo jadwalkaas in lagu shaqeeyo sharciga iyadaana si sax ah waxa weeyaan loola falgaro farq waxyaabaha dhacayna Soomaalida hadda kadib inay ka waantoobaan cidna kale ma celi kartaan dalkan waxa weeyaan waa ka gudbay wixii hore aqliyadii lagu shaqeyn jiray
waalidiinta ay ku shaqayn jireen awoogaada haliye ahaa iyo awoogaada laandheer ahaa iyo cid laandheer iyo laangaab ma jiro marba haddaan wada dhimanayn oo qarax aan u wada simannahay oo dullinimo aan u wada simannahay caalamka waxa weeye annaga lagu dandaray kulligeenaba waxa waaye laangaaban wadanahay laakiin waxa ayaan xumo ah daraad waxaa laga mudaaharaadayay South Africa nin Soomaaliya lagu dilay maanta waxa ayaan daraah nin Soomaali lagu dilay maaha nin Soomaali lagu gubay inaan waxa weeyaan aan laga dhiidhin ayaa waxa weeyaan ayaan dara shacabku waxaan ugu baaqayaa arinta inay ka dhiidhiyaan cadeeyaan waxaana inay tahay ficil oo aad iyo aad u foolxun taariikhda Soomaalidana aad iyo aad ugu xun inay tahay golaha baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa ay ka doodayaan wax ka bedelka xeer hoosaadka u yaala golahaasi iyadoona halka uu dood ay ku dhaxmari doonto golaha baarlamaanka sidii wax looga bedeli lahaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaana doonaya in waxyaabo badan laga bedelo xeer hoosaadka baarlamaanka Soomaaliya maadaama baarlamaankani uu ku shaqeeyo inta badan xeer hoosaadkii ay ku soo shaqeynayeen baarlamaankii sagaalaad baarlamaankan ayaana la doonayaa in xeerar cusub ay ansixiyaan maadaama waqtigan ay hor taalo shaqo adag isla mar ahaantaana la doonayo in waxyaabo badan oo ay kamid tahay dadajinta sharciga haybsooca ay dardargeliyaan dooda maanta ayaana la filayaa in ay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah isla mar ahaantaana wax looga bedelayo xeer hoosaadka u yaala baarlamaanka Soomaaliya inta badanna baarlamaanka ayaa kala sharciyeeya xeer hoosaadka u yaala iyadoona aanu la gees marin xeer hoosaadka haddii ay timaadana ay tahay in sharciga meel looga dhacay awoodda xildhibaanada ayaana la filayaa in waxyaabo laga bedelo maadaama dood fara badan halkaasi ay ka jirto isla mar ahaantaana marka khudbadaha la soo jeedinayo xildhibaanada uu yar yahay isdhageysigooda markab ka shaqeynaya arrimaha gargaarka iyo bini'aadanimada oo ka dhex shaqeynaya badda Mediterranean-ka oo u dhaxaysa Talyaaniga iyo Liibiya ayaa laga kansalay liiskii ka shaqeynta arrimaha bini'aadanimada maadaama markabkaasi laga lahaa Panama ayaana cadaadis lagu saaray markabkaasi sidii ay u kansali lahayd isla mar ahaantaana ay ugu saari lahayd liiska ka shaqeynta arrimaha badbaadinta tahriibiyaasha tahriibka ayaa guud ahaanba Afrika waxa uu ku noqday caqabad soo jireen isla mar ahaantaana dadka inta badan ay ku dhiiradaan maadaama maraakiib fara badan oo laga leeyahay dalalka Yurub ay ka shaqeeyaan badbaadinta arrimaha tahriibka markabkan ayaana hawshiisa carqalad ku noqonaysa ka sii shaqeynta badda maadaama maalmaha soo socda la filayo in gabi ahaanba la kansalo hawshii uu ka waday badda Mediterranean-ka markabkan ayaa joojinta hawshiisa kadib waxa inta badan dadka arrimaha bini'aadanimada ka shaqeeya ay u fasirteen xaalad xun oo soo wajahday dadka soo doonaya waqtigan in ay soo haligaan naftooda isla mar ahaantaana badda ay soo galaan maraakiibta ka shaqeeyda badda Mediterranean-ka ayaa ah kuwa kooban oo laga leeyahay dalal kala duwan oo ka tirsan Yurub markabkan hawshiisa ayaa inta badan waxa ay ahayd badbaadinta doomaha yararka ah dadka naftooda ku soo haliga kuwa oo ka soo baxa Liibiya si ay u soo gaaraan Talyaaniga kadibna ay ugu gudbaan dalalka kale ee dunida gaar ahaan kuwa Yurub markabkan joojinta hawshiisa ayaa waxa inta badan dawladda Panama ay xoog ku saartay sidii ay liiska ugu kansali lahayd maadaama la sheegay markabkani inaanu ka shaqeyn karin howlahaas guud ahaanna warkii koobnaa ee telefishinka Somali Cable inta ayaan ku soo afmeeraynaa intaynu warka xiga kaga kulmi doono waa anigu Maxamed Cismaan Daahi oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo